ذرية صالحة أقفكم مركو دينتوي أنفعان نبي وحي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة قفكو هدو دينت عملك وقؤيا صدح مركا لغريبو إلا من صدقة جارية صدقة جوكتاه أو أصميستي مركو النولا أما ذريدي صالحين تا أصميين أو علم ينتفع به علم لغو انتفاع يوكتغي أو ولد صالح يدعو له أما ولد وناكسن أو صالح أو آبه سيهو يدي سود عينيه تاسنا مقوائس صلاح علمها انت بدن أساس وحاء صلاح هو يضا ولهذا قفك مركا وقرسنا يوائن الرادية هو وناكسن أو الدين له وإنه ضلبضا وحي كلا أو ديرادو إلهي أقدر ومشي لكن وإنه همي سكوبان وياهي هو يضا الرادين يلمه سأرادين أيه وحويان أو يوناكسن وذات خلق ودينه إلهي وحلا فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله هوينك صالحات كأه ومطيعات إلهي أمرك سأطيعيه وأمرك إلهي قاضنيه إلهي أوامرتي سفرتومي حافظات أي إلهي سبحانه وتعالى كتل مامي زوجكooda inay yihiin kuwa xifdiya markuu maqan yahay markuu joogaba nafteeda iyo maalkiisa iyo ilmihiisaba mid ilaaliso oo xifdiso ilaahay uga baqdo haduu zawjkii maqan yahay waxay xifdinaysaa nafteeda samayn mayso fuxshi iyo xumaan maqnaashaha uu maqan yahay haduu joogana waa la mid maalkiisa ayay ilaalinaysaa oo xifdinaysaa durriyadiisa ilaalinaysaa وحافظات هوانك إياك أبا إلهي أماني سبحانه وتعالى ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وحو ليه هي تنكح المرأة لأربع ضبي عدد ضدك مركو كور رمى يرجع يقول سدان أفر بالو يقول سدان وحو النبي صلى الله عليه وسلم وهر مريي لمالها ضد مالك دنياه ولحسبها sharafta iyo qiimaha qofkan iyo dadka ay ka soo jeeda ay ka leedahay dad baa daneeya wali jamaliha waa la danayn quruxda ay leedahay waa loo raacaa wali diiniha baa nabiga sallallahu alayhi wasallam ku soo qatay diinkeedana waa loo guursadaa fadfar bidaati diini taribat yadak nabiga alayhi salatu wasalaam wuxuu booriyay midda diinka u saaxiibka leh in la guursado حكمتنا كسبنا وحوية جوركو قروحنا كلية أو الورناعو مال كاني وادمان قروحنا وإسكت دمان وحباق النقنا يا وحويان ودينك هدي الدين لا هاي تضباط سنة هدي جارته ونور إسا دينك أيانا افتيمنا يا نورنا هاي أخلاق وناكسن يدحل وناكسن أي كتجيسا الريبيس وحي إلهي كاسي يؤذرية أهنا تربيه وناكسن أيات كفي ليس إلهي إذا الكيس وإن دينك الإلالية وقبلها اللقوق جرسدا دينك وإن لا إيقا وحي كلاو إرادة إلهي أقدر مش ولذلك وحن حسوسنا وقرنا هيا لما قري أو دريس لما نن أو قرابة أهنا أي كلليهين لما حاس لما دودي وين مقيهين لما دي هوية أيا إلمها هيا لما دا قري يها مركا ميت صومرة هيا إما إنه قرآن كدارين يهي وإما إنه مغليسيد إلما قرآن آخرنا هي داقدها كم مغليسيد إلمها سيهدي قولي كصوبحها هيان قبلها سوى حجابيهين ويلشوا قميسي قمان مساجد كي آذيان سلالها مساجد كان كو أركا قولي سيدا سوي قولي كالو داري سلعة يا وحان قرنا يا مر الله عليا مر كان أقمر يا انت بضن هيس أيات دارن وحافظها يا ميرو بلغا مقلها ilmaha jooga ee masaajidka lagu ma arko mana aadaan jardiinka banaanka guriga abay fariistaan gabdhihii oo waxa weeyaa marya khafiifa qaba
hooyaduna baati bay soo xirataa casirradii iyo subaxdii markay tahay waxay fadhiisataa jardiinka bannaanka ah ayadoo baati wadata maxaasinteedii iyo quruxdeedana qof kastoo jidka maraya u arkahayo weli ma aanan maqal guriga intaan ag marahaye hees mooyaane qur'aan ka daaran ma aanan arkin gurigaa kalena haddaad ag martid imaa inaad qur'aan maqlaysid ducooyin maqlaysid ilmo qur'aan aad akrinahaya maqlaysid labadii aabbana way ka maqan yihiin midna ma joogo muqdisho labadu waa ka maqan yihiin waxa weeyaan meeshaas waxaa marka tarbiyada ka socota waxa weeyaan waxaad dareemi kartaa labada hooyo ayaa waxa weeyaan midna waxay tahay qof diin u saaxiib ah iyo akhlaaq wanaagsan midna waxa weeyaan middaas ay daciif ka tahay markaasaa intaajka iyo wax soo saarku oo sidaa u kala bedelnaanayo nebiga calayhi salaatu wasalaam su'aal baa la weydiiyey ayu nisaa'i khayr ayaa la yidhi haweenka ayaa ugu fiican oo ugu khayr badan markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay haweenta saddex tilmaamood leh inay ugu fiican tahay allatii tasuruhu idaa nadar haweenayda waxaa ugu fiican ninkeeda markuu eego farax gelisa markuu arka ayuu farxaya wejigeedaa furfuran oo farxad bay ku soo dhowaynaysaa wax uu dhibsada ka arki uu mahayo wanaagga ka muuqda ayuu ku farxaya way farax gelinaysaa wa tutiicuhu idaa amar hadduu amar siiyo wax amrana way addeecaysaa ka hor imaan mayso amarkiisana caasin mayso walaa tukhaalifuhu fii maa yakrah fii nafsiha wa maalihi baa nebigu calayi slat slaam mana ku khilaafayso oo u gadaal mari mayso wax allaaliya waxa uu nacahayo waxa uu nacahayana oo asagu karaahiyaysanayana ku khilaafi mayso samayn mayso hadday waxaas yihiin wax nafteeda quseeya nafteeda wax allaaliya wax uusan raalli ka ahayn ku samayn mayso calaaqo kale iyo xidhiir kale midna yeelan mayso maalkiisana wax uu nacahayo ku samayn mayso maalkaagii waa lagu ilaaliyey zawjadaadii xumaan oga baqi maysid iyo calaaqo kale iyo xidhiir inayna yeelato hadduu fiiriyo wuu ku farxayaa hadduu amrana amarkiisa ayay addeecaysaa oo qaadanaysa haweenta sidaasii zawjka ay guriga u joogto wax nimcaahoo ka maqan male ilaahay ha ku shukriya subxaana wa tacaala wuxuu soo gelayaa nebigu waa ka yidhi addunyaa mataac wa khayru mataaci اddunyaa almar'atu الsaalixa adduunyadu waa raaxo raaxadeedana waxaa ugu qiimo badan haweenay saalixada ayaa ugu qiimo badan haweenta saalixadda ah nebiga calayhi salaatu wasalaam janno ayuu ugu bishaariyey haddii tilmaamaha salaaxa laga helo wuxuu nebigu yidhi idaa sallat ilmar'atu khamsaha hadday salaadaheeda shantaa ay tukato wa saamat shahraha bisheedana ay soonto wa xafidat farjaha farjigeedana xumaan ay ka xifdiso wa ataacat zawjaha zawjkeedana ay addeecdo warkiisa ay maqasho qiila laha dkhuli اljanna min أyi abwaabi اljannati shi'ti waxaa loo yidhaahdaa jannada gal iridaheedana iridda aad doontid ka gal ayaa la yidhaahdaa bal u fiirso gurigeedii bay joogtaa janno ayayna kasbatay ayadoon aan tacab kaliya midna aan gelin shaqo iyo orod midna aan gelin oo gurigeedii oo ay joogtay ayay ku cibaadaysatay inay ilaahay awaamirtiisana ay qaadato zawjkeedana addeecdo markaasay waxay intaa ku hesho ilaahay uu ku siiyey subxaanahu wa tacaala in loo yidhaahdo jannada iriddaad doontid ka gal maxaa ka maqan haweentaas ninka dhibaatoonayo xamaalayo shaqaynayo soo dhididahaya oo baxahaya haddii biilkii ilaahay u saaray ayadiina gurigii yarkaa ay joogta dhexdiisii janno lagu siiyey haweenaydaas maxaa ka maqan wax ka maqan adduun iyo aakhira ma leh haddii ilaahay iimaan iyo qanaaco uu siiyo waxaa gabdhaha guryaha looga saaray oo jaamacadaha iyo dibadaha loogu dhoofinahayo oo siyaasadda loo dhexgeynahayo oo meel walba loola ordahayaa waxa weeyaan xuduud yar iyo dheef yar oo adduunyaha lagu helo weey bal u fiirso jannadii ay shaqaysan lahayd baa ka dayacaysa adduunyada ilaahay subxaanahu wa tacaala waajibkaa nin buu u saaray zawjkeeda biil ku leedahay ayaduna jannay shaqaysanaysaa waa loo soo shaqaynahaya jannana way shaqaysanaysaa maxaa ka maqan taas waa in la dareensiiyaa
gabdhuhu inay dareemaan in waxa weeyaan qiimahooda iyo sharaftooda uu yahay inay guryahooda ay ku nagaadaan ilaahayna adeecaan aswaajtoodana ay adeecaan walidaalika nabiga calayhi salaatu wasalaam haweenta saalixadda ah wuxuu ku tilmaamay inay tahay midda aan ninkeeda dhibin wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa tu'di imra'atun zawjaha fi ddunyaa haweenay adduunyada ninka kuma dhibto ilaa qaalat zawjatuhu min alxuuri alciin laa tu'diihi qaatilaka allah ha dhibin ilaahay ha ku dile ha dhibin hadday haweentu ninkeeda ay dhibto haweentiisii xuurul caynta ahayd oo jannada uu ku lahaa ayaa hadlaysa markaasay leedaha ha dhibin fainnamaa huwa cindaki dakhiil agtaada koyto ayuu ku yahay soo galooti ayuu agtaada ku yahay marti buu ku yahay yuushiku an yufaariqaki ilayna waxaana dhow inuu annaga noo soo kaa faaruqo oo noo yimaado ayaa dhow ee ha dhibin ayay ku leedahay haweenta saalixadda ah markay og tahay inay haween kale oo xuurul cayn ah ay jawaab siinayso oo ay leedahay wuu kaa soo tegayaa annagaa si fiican u soo dhowaynaynaa ha naga dhibin ay leedahay taasaybay ka masayraysaa oo dhibkay ka ilaalinaysa taas baaba masayrba ugu filan in halkaa ay ka naadinayso xuurul cayn ha dhibin agtaada marti buu ku yahay annagu noo imaan doonaa ha dhibin in lagu leeyahay hadday dareento waxa weeyaan dhibka ayay ka ilaalinaysa haweenayda saalixadda ah waa midda gurigeeda markay joogto waxa weeyaan ajaanib inay u soo galaan aan ogolaan iyaakum addukhuula cala annisaa hadday guriga imaanayaanoo dad soo booqanayaanna khalwadana ka ilaalisa xijaabka sharcigaana laasimta indhaheedana laabta weeye hadday baxayso oo bannaanka u baxayso haweenayda saalixadda ah waa midda iska ilaalisa atabaruj tabarrujku waxa weeyaan haweentu quruxdeeda inay bannaanka u soo bixiso oo ajaanibtu ay arkaan walidaalika nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi alaaatun laa tas'al canhum saddex qolo cidna ha weydiin cadaabtoodu way caddahay inay halaagsameenna way caddahay cidna ha su'aalin rajulun faaraqa aljamaaca wa casaa imaamah wamaata caasiyan nin madaxweynihii muslimiinta khilaafay oo imaamkii beecadiisii ka baxay oo jamaacadii muslimiinta faaruqay oo asagoo caasiya dhintay iyo addoon sayidkii lahaa ka cararay oo ka baxsaday oo sidaa ku dhintay midda saddexaadi waxa weeye wamra'atun gaaba canha zawjuha haweenay ninkeedii uu ka maqan yahay qad kafaaha mu'nata addunya duruufihii adduunyada iyo biilkii adduunyadana uu ka kafaalo qaaday uma tabarajat bacdah kabacdiina markuu maqan yahay biilkiina uu siiyo tabaruj samaysay quruxdeedii soo bixisay bannaanka u soo baxday xishoodkii ka tagtay maxaasinteedii iyo quruxdeedii ajaanib u muujisay haweentaa iyada ah saddexda halaagsantay bay ka mid tahay cidna ha weydiin ayaa nebi moxamed leeyahay calayhi salaatu wasalaam haweentu hadduu ninka u yeedho xaalad kastoo ay ku sugan tahay xaq uma leh in waxa weeyaan ay diiddo ilaa hadday diiddo lacnad baa waagu ugu baryaya ilaa ay ka soo laabato waa ka nebigu yidhi calayhi الصalaaةu wasalaam idaa baatat ilmar'atu muhaajiratan firaasha zawjiha haweentu hadday waa bariisato oo caawa ay barido ayadoo firaashkii zawjkeeda ka haajirto oo ka tagtay lacanatha almalaa'ika xataa tarjic malaa'igta ayaa lacnadaysa ilaa ay soo laabato xadiidka kale waxa weeyaan ithnataani laa tajaawazu salaatuhumaa ru'uusahumaa laba qolo salaadoodu madaxooda ma dhaafto macnaha lama aqbalo lama rafciyo salaadooda laba qolo salaadoodu madaxooda ma dhaafto cabdun aabiqun xataa yarjic addoon baxsaday oo sayidkiisa ka baxsaday ilaa uu soo laabto wamra'atun casat zawjaha xataa tarjica haweenay ninkeeda ku amar diiday oo caasisay ilaa ay u soo laabato oo ay u timaado walidaalika nebiga calayhi الصalaaةu wasalaam haweenay baa u timid
markaasuu su'aalihii uu weydiiyey markuu zawjkeeda ka waraysta xaggee kaa joogaa bay tiri waxaan awoodo wax allaaliya waxaan awoodo kama gaabiyo inaan u sameeyo markaasuu wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam fandurii ayna anti minhu waxaad eegtaa meesha zawjkaaga aad ka taagan tahay iyo waxa aad u qabatid iyo sida aad u adeecsan tahay iyo sida amarkiisa u qaadanaysid eeg fa innahu jannatuki wa naaruki zawjkaagu waa jannadaadii waana naartaadii ogow saasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ku yidhi haweenay allaaliya haweenaydii ninkeedu ay dhimata iyadoo zawjkeedu raalli ka yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam janno ayuu ugu bishaariyey marka mowqifkaasi wuxuuna barayaa waxa weeyaan gabdhaha muslimaadka ah inay dareemaan xuquuqda waaweyn oo aswaajtoodu ay ku leedahay waxaana ogaan karta oo dareemi karta oo fulin karta gabar saalixad ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku manaystay aliimaan waalcamal asaalix tarabiyo iyo akhlaaqna lagu barbaariyey si mowqifkaa loo gaaro loo helo waxaa laga yaabaa rag badan inay raadinayaan azawjatu asaalixa xaggee laga helaa waaba la la'yahay zamankan lama arko ayaa la leeyahay haddii ayagu yaraadeen ragga saalixiintaa ma badan yihiin ayaguna ma badna haddii ragga saalixiintaahi ay badan yihiin gabdhaha saalixaadkaahina waa badan yihiin guriga aa ku soo kortay adigu bay ayaduna ku soo kortay hadduu guri diina ahaa wiilkana salaax baa loo rajaynayaa gabadhana salaax ayaa loo rajaynaya si loo helo waa inaa adigu waxa weeyaan salaax la timaadaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u laabataa oo adigu naftaada aad xisaabisaa adigu saalix ma tahay si ilaahay subxaanahu wa tacaala mid saalixada ilaahay kuugu arsaaqo naftaada dib u muraajace ilaahayna su'aalo middaas wanaagsan oo khayrka badan oo waxa weeyaan nolosha fiican kula qaadanaysa ilaahay inuu kugu arsaaqo weydiiso salaaxa iyo wanaaggana la imow kii hadda haya waa inuu ku didaalaa inuu ilmahaas tarbiyadooda iyo salaaxooda uu ka shaqeeyo ilmaha waa in la geeyaa macaahidda diiniga ah iyo madaarista qur'aanka muhiimadda waa koobaad waa in middaa la siiya ee aan waxa weeyaan shayga maadiga ah oo maanta aynu arkayno gabdhaheenni meesha xishoodkoodii uu marahayo akhlaaqdoodii ay marayso ayagoo guryo fiican ka soo toosay ayaa waxaa fasaadiyey meesha la geeyey ayaa fasaadisay diinkii baa la barayaa khayrkii baa lagula dadaalayaa laakiin wax allaaliya wixii waalidku ay bareen iyo waxay u sheegeen madarasada iskuulka ama jaamacadda ayaa ka mayrtay oo ka dhaqay waana naadir in la helo jaamacaad wanaagsan oo gabdhaha lagu hallayn karo aad bay u yartay kadaalika sidoo kale waalidiinta in badani gabdhahooda warba uma hayaan waxa ay ku sugan yihiin war kama hayaan meesha ay marayaanna war kama hayaan jaamacaddaaba laga yaabaa inay oga naxariis roon tahay in badan ilmahooda rag macallimiin jaamacaadka ka abaa ii yimid waxayna yidhaahdeen mar walba akhlaaqda ilmaha ayaan ku didaalnaa gabdhaha iyo wiilashaba dharkan khafiifka ah oo xun haddaan ka dhigno mar labaad baa loo soo gadaya wiilkii suu rabo u soo labisanaya lacagtan fanka ayaa bixiya waalidkii baa fanka bixinahaya oo dhaqaalihii bixinahaya jaamacaddii way la diriraysaa waalidkiina waxa weeyaan markii laga dhigo oo loo diido mid kale u soo gadaya mid kale u soo gadaya kuwaasina waa jiraan waalid sidaas ah jaamacaad waxa weeyaan ayaguna waxa weeyaan akhlaaqda in badan ilmaha ka dilahayaana aad bay deegaankeenii dalkeena ugu badan yihiin